waxaan waraysi ka qaadinaa rag jooga magaalada Tikrit kuwaasoo daacad u ahaa hogaamiyihii hore ee dalka Ciraaq Saddam Hussein. Raggani waa rag daacad u ah waxaana hogaaminayaa ninkanina waa nin ku hadlaya luqadda Ingiriisiga laakiin isagu luqaddu ku hadlayo luqad jajaba laakiin waxaan leenahay bal maxaa haysaa adoo Ingiriis ku hadlaya. annagu waxaan u sheegaynaa Mareykanka iyo waliba dawladaha kale dabada uu ku wato inaanu annagu Mareykanka aan ka yeelin arrimaha uu ka wado dalkan. waxaan leenahay anta ciyaadka dad Arintee arrimaha Mareykanku wado waxaa kamid ah isgaad iyo waliba arrimo kale riwaayado ay kamid yihiin. waliba anigu Ingiriiska waa aqaana, Ingiriis fiican baan aqaana. xagee ka taqaanaa Ingiriis? waxaan ku bartay jaamacadda ku taala Qaahira Ingiriiska. waliba Ingiriis waxaan bartay internationalkee see u baratay? adigu naga daawray hadalka annaga nagu soo celin hadalka Ingiriiska waa ku turjumaysaa gabadhan noo turjumi maysa hore naga daaqayrada way ku turjumaysaa Soomaa may adar ikaad horta ikaad waraysiga waa ii dhamaaday anaa waraysanaya qofkan yaa naga qabsada. warkaaga ma fahmin igu soo celi. warkayga maxaad fahmtaaba kanaaba aniga luqunta ii galay wuxuu ku leeyahay Ingiriis baa lagu turjumaya see la igu turjumaya aniga maana Ingiriis la ii turjuma weligay baan Ingiriis aqaanay xitaa waa ku heesi karaa heesooyin waxaan ku samayn karaa ilahan naga daayaniyo. kaasi waxa uu ahaa hogaamiyihii kooxda taageersanayd Saddam Hussein iyo waliba raggii daacadda u ahaa Saddam. annaga leeyihiin Ingiriis baa lagu turjumaya see loogu turjumaya Ingiriis anaga wariyaha Ingiriisina looma turjumi karo. Ingiriis waa naqaanaa jaacad baan uga soo baxnay waa ku heesi naqaanaa waa ku ciyaar naqaanaa waliba Ingiriis gibigiisa oo dhanba laad baan kala daali karnaa. Ingiriis luqad baan uga dhigaysaa annaga hordaha nagala tagay adiga naagteeda wariyaha meesha ka